بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن wanaagsan daawadayaasha xishmada iyo qadarinta inaga mudan meel kasto oo dunida ka joogtaan halkani waa channelka qaranka TV oo la socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay macluumaadada kale ee ku saabsan xaaladda Soomaaliya iyo dunida inteeda kale waa kowda bisha 9 September sanadku yahay 2020 qodobada wararka xilliga kan aan idin ahayna waxa ugu waaweyn hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland oo soo gaaray maanta muddo kadib magaalada Muqdisho iyadoo si wanaagsan loogu soo dhaweeyay dawladda oo gudoomiyaha gobolka Banaadir u xil saartay soo dhaweynta barasaabyada Puntland iyo Jubbaland waxaan eegi doonaa kulamadii ilaa iyo haatan saacadii la soo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho iyo beesha caalamka oo markaasi digniin adag duligtay labada barsaab ee Puntland iyo Jubbaland xilli ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho shirka weyn ee magaalada Muqdisho ku dhaxmari doona labadan barsaab iyo madaxweyne Farmaajo waxyaabaha ugu waaweyn ee diiradda lagu saari doona ayaan warku ku eegi doona iyo dawladda Soomaaliya oo ku guuleysatay in iyadoo beesha caalamka ay dhaxdhaxaadinin ay la fariisato dhammaan hogaamiyaasha dawlad goboleedyada dawladda oo la wareegtay ammaanka labadan barsaab ee maanta soo gaaray magaalada Muqdisho xilli ay ilaalo gaar ah soo kaxaysteen hase ahaatee loo sheegay in amnigoodu ay sugayaan ciidanka qaranka Soomaaliyeed Ilhaan Umar oo dacwad ka gudbisay askar markaasi falal cadawtinimo kula kacay dad muslimiin ah gudoomiyaha gobolka Banaadir oo tiro mas'uuliyiin ah u magacaabay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir halka kuwii hore xilka laga xayuubiyay iyo wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo ururka jaamacadda Carabta kala hadlay arrimo la xiriira deen cafinta Soomaaliya qodobadaas ayaa daawo doontaan saaxiibada xishmada iyo qadarinta inaga mudan meel kasto oo dunida ka joogtaan waxaanu dileenahay wanaagsan wacan doodan waxay ku saabsan tahay magaalada Muqdisho maanta markii ugu horeysay waxa soo gaaray tani markii la doortay hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Dani iyo sidoo kale Axmed Madoobe tani markii doorashadiisu ay ka dhacday Kismaayo sanadkii tagay ee 2019 haddaba waxaad ka soo aragtay kartaan socdaalka ay magaalada Muqdisho ku yimaadeen labada barsaab iyadoo dawladda Soomaaliya ammaankooda ay la wareegtay qodobada kale ee warka ayaad ka soo hadli kartaan qaarkiin haddii aad nagu cusubtihiin channelkana subscribe hadina hado la wadaaga muuqaalkan iyo muuqaalada kaleba saaxiibadina kala sii qayb ugu noqdaan daawadayaasha ku xiran channelka laagta naga ilmaamina haatan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadii wararkaasi oo faahfaahsan waxaanu ku bilaabaynaa warkeena magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray hogaamiyaasha dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland maatanka magaalada Muqdisho ee labadan mas'uul ayaa waxa uu salka ku hayaa siday ula shiri lahaayeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hogaamiyaashan casuumaad u sameeyay dhawaan waxaa soo dhaweyntooda ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dawladda Soomaaliya u xil saartay halka sidoo kale ay qayb ka ahayeen xubno kale oo kamid ah maamulka gobolka Banaadir soo dhaweynta loo sameeyay labada barsaab ayaa ahayd mid markaasi ay mudan yihiin sida ay sheegeen dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya halka dawladdu ay joojisay in markaasi xubnaha xukuumadda ay soo dhaweeyaan hogaamiyaasha Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ayaa guri gaar oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya la dejiyay halkaasi oo dawladda Soomaaliya ugu talagashay iyadoona ammaankooda ay sugayaan ciidanka baliiska dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa jiri doona kulamo diiradda lagu saari doono arrimaha doorashooyinka xaaladda siyaasadeed ee dalka oo magaalada Muqdisho ku dhaxmari doona barsaabyadan iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo geesta kale waxaa jirtay kulan gaar ah oo garoonka aadan cadda ku dhaxmaray labadan barsaab iyo xubnaha qaar ee beesha caalamka sida safiirka dawladda Mareykanka u qaabilsan dhinaca Soomaaliya iyo labadan barsaab kulankaasi ayaa waxa diiradda lagu saaray kulanka dhaxmari doona madaxweyne Farmaajo labadan barsaab uu noqon lahaa mid guuleysta waxa uu kula dardaarmay safiirku oo uu faray hogaamiyaashan in markaasi aanay khilaaf kale ka shaqeynin oo arrimaha Soomaaliya la xiriira wuxuu ugu baaqay kulanka ay la qaadan doonaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu noqdo mid miro dhal ah oo aysan ka hor imaanin labada barsaab dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay garwaaqsan tahay dadaalka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ah doorka shariifka kuna saabsan isu keenida dawlad goboleedyada dalka ka dhisan si markaasi ay dawladdu kaga qanciso tabashooyinka ay qabaan hogaamiyaasha dawlad goboleedyada kulanka safiirka uu la qaatay labadan hogaamiye ee Puntland iyo Jubbaland ayaa ahaa mid lagu xoojinayay wada shaqeynta dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka Saciid Dani iyo Axmed Madoobe ayaa kol hore ka biyadiiday ka qaybgalka shirka Dhuusamareeb 3 kaasi oo u dhaxeeyay dawladda iyo hogaamiyaasha dawlad goboleedyada Galmudug Hiirshabelle Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana qodobada qaar laga bedeli doonaa heshiiskii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb wararka uu helay channelka qaranka TV ayaa sheegaya in qodobada wax laga bedeli doona ay kamid yihiin
qaabka soo xulista xildhibaanada soo socda iyo in soo xulista baarlamaanka ay door ku yeeshaan hogaamiyaasha dowlad goboleedyada maadaama shirka dhuusamareeb 3 heshiiska uu qeexayo in guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo kan farsamo ee dowladda iyo dowlad goboleedyada loo madax banaaneeyo arrinta ku saabsan soo xulista xildhibaanada. kulanka weyn ayaa dhici doona maalinta berita ah sida uu xogta ku helayo janalka qaranka TV. bal wixii warar ay ka soo kordha daawadayaal tagista magaalada muqdisho ee hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland waxaad kula socon doontaan wararkeena dambe haddii rabbi karaan noqdo meel kastoo aad dunida ka joogtaan. waxaanu dilanahay habeen wanaagsan ka soo aragtay dhiibta qodobada warkeena. geesta kale gudoomiyaal cusub ayaa loo kala magacaabay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa u magacaabay gudoomiyaha degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir Cali Axmed Cabdulle Cali Soomaali oo mar soo noqday saxafi ka shaqeyn jiray warbaahinta maxalliga ee gudaha waxaana goobaha uu soo maray warbaahinada uu ka soo shaqeeyay kamida idaacadda Shabeelle oo lagu tiriyo idaacadaha ugu afka dheer ee dhinaca magaalada Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in shakhsigaasi uu arkay inuu ka soo bixi karo xilka culus ee uu magacaabay. geesta kale nin gudoomiye ka ahaa degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayuu gudoomiyuhu magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha degmada Dharkeeley ee gobolka Banaadir. magacaabista uu sameeyay duqa magaalada Muqdisho ayaa imaanaysa xilli maamulka gobolka Banaadir uu waqtiyadii ugu dambeeyay dardar ku waday shaqooyinka la xiriira dhinaca maamulka gobolka Banaadir. habeenkii xalay ayay ahayd markii gudoomiye ku-xigeenka dhanka maamulkii maaliyadda uu kulan kula qaatay degmada Hodan ee gobolka Banaadir xubnaha maamulka degmooyinka gobolka Banaadir. kulankaasi oo lagu xoojinayay arrimaha ammaanka dhaqaalaha degmooyinka gobolka Banaadir iyo shaqada kale ee maamulada degmooyinka ay u hayaan bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir. maamulka gobolka Banaadir ayaa faray gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir in markaasi ay xoojiyaan shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan 17 degmo ee gobolka Banaadir. geesta kale haddii aynu eegno tiro xildhibaan oo ay hogaaminaysa markacaysa Ilhaan Cumar oo ka tirsan baarlamaanka dalka Mareykanka gaar ahaan golaha wakiilada ayaa dacwad ka gudbiyay ciidamada ka hortaga qaxootiga iyo kuwa canshuur qaadista badacooyinka la dhoofiyo kadib markii ay dad muslimiin ah oo xabsi ku jira ay ku qasbeen cunto hilib doonfaar ah taasoo ay ku tilmaameen xildhibaanadan oo ay markacaysa Ilhaan Cumar mid xadgudub ah. xildhibaanadan ayaa sidoo kale waxay shaaca ka qaadeen in sharci caalami ay la tigsan doonaan askar u dhalatay Mareykanka iyo wadamo kale. waxa ay ku sheegeen qoraal kooban ay u gudbiyeen waaxda amniga gudaha inay ka codsanayaan baaritaan degdeg ah in lagu sameeyo dhacdadaasi foosha xun ee lagula kacay dadka muslimiinta ah ee xabsiga ku jira. war-saxaafadeedka ay si wada jirka u soo saareen xildhibaanadan ka tirsan golaha wakiilada Koongareeska Mareykanka oo Ilhaan Cumar ay hogaaminaysa ayaa sidoo kale lagu sheegay in askartaasi la marsiiyo ciqaab ku filan. qoraalka ayaa u dhignaa sidan: waxa la aqbali kara maahan in dad muslimiin ah oo ku jira xabsiyada qaxootiga lagu qasbo cunista hilib doonfaar. taasi waa xadgudub mana ahan mid sii shaqeyn karta. waxaa la siiyay dadka muslimiinta ah hilib xaaraan ah oo qurmay. arrintaasi waa in sharciga sida ay tahay loo marsiiyaa. waxaa sida lagu yiri qoraalka war-saxaafadeedka ah oo ay sida wada jirka u soo saareen xildhibaanadaasi. geesta kale wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa sheegay inuu kulan magaalada Muqdisho kula qaatay xubno ka socday ururka jaamacadda Carabta. kulanka ayaa diiradda lagu saaray arrimo la xiriira barnaamijka dinacafinta Soomaaliya sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. waxa uu shaaca ka qaaday wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya in xubnaha kulanka uu la qaatay ee jaamacadda Carabta ay isla afgarteen sidii Soomaaliya loogu dhaafi lahaa deemaha lagu leeyahay dhinaca jaamacadda Carabta ama dalalka ku midaysan jaamacadda Carabta ee khaliijka ka socda. waxa uu intaasi ku daray wasiirku in guulo ay ku soo dhamaadeen qodobadii uu kala hadlay ururka jaamacadda Carabta ee la xiriira barnaamijka dinacafinta Soomaaliya isagoo ugu dambeyn hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in la isla meel dhigay qorshe lagu horumarinayo dhaqaalaha Soomaaliya. Soomaaliya waxa ay qayb ka tahay ama xubin ka tahay ururka jaamacadda Carabta ee fadhigoodu yahay magaalada Qaahira ee dalka Masar. waxaana jaamacadda Carabta hadii goorale ay sameeyaan garab istaag ay u muujiyaan dhinaca Soomaaliya. ugu dambeyntiina haddii aynu eegno dalka Mareykanka magaalada lagu magacaabo Los Angeles waxaa lagu dilay nin madow ah. falkan waxaa ku kacay askarta cadaanka ee Mareykanka. dilka waxa uu yimid sida ay askarta ku doodayaan
kadib markii ay hub ku arkeen ninka madowga ah taasi oo keentay in ay booliiska rasaaseeyaan deetana oo u dhinto hase yeeshee toogashada loo geystay ninkaasi madowga waxaa ka dhashay dibadbaxyo waaweyn xilligan wararka ka imaanaya magaalada Los Angeles waxa ay sheegayaan in dibadbaxyo waaweyn ay ka socdaan oo ay dhigayaan bulshada kala gedisan ee halka ku dhaqan iyaga oo falka ku tilmaamay mid cunsurinimo leh oo lagu beegsanayo dadka madowga ee ku sugan dalka Mareykanka muddo haatan laga jooga dhowr bilood ay ahayd markii booliis ka tirsan Mareykanka ay dileen nin madow ah kaasi oo lagu magacaabi jiray George Floyd isla markaana ay ka dhashaan xiisado waaweyn oo muddo toddobaadyo ah gilgilay dalka Mareykanka dibadbaxyada haatan ka soconaya Los Angeles ayaa suuragal waxa ah in ay ku sii baahaan qaybo kale ka mid ah isla dalka Mareykanka booliiska waxay isku dayayaan inay dajiyaan dadka dibadbaxyada dhigaya oo aad u careysan hase yeeshee dibadbaxyaasha ayaa gudaha u galay xarumo booliis iyo goobo kale warkii oo aad kala socoteen daawadayaasha xashmada iyo qadarinta inaga mudan xiliga kan channelka qaranka TV waa inaga inta ka bogashada wacan ee warkana waad ku mahadsantihiin warkan warkiisa xiga daawadayaal inta aad dib ka daawa doontaan waxa aan u dilenahay sidaas iyo nabad galiyo nabad